Toni Kroos wuxuu dhashay 4 Janaayo 1990. Waa xirfadle kubadda cagta Jarmal ah oo u ciyaara kooxda Isbaanishka ee Real Madrid iyo xulka qaranka Jarmalka. Kroos wuxuu inta badan ciyaaraa khadka dhexe, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa khadka dhexe ee daafaca ama kubad sameeyaha qoto dheer. Waxa uu caan ku yahay aragtidiisa, hal-abuurnimadiisa baasaska iyo karti samaynta. Waxaa lagu tiriyaa inuu yahay mid ka mid ah xiddigaha khadka dhexe ugu fiican. Waxa uu ku dhashay magaalada yar ee Greifswald ee Jarmalka. Kroos wuxuu bilaabay xirfadiisii ciyaareed ee kooxda Bayern Munich, halkaasi oo kulankiisii ugu horeeyay u saftay isaga oo 17 jir ah. 2007 si xamaasad leh ayaa loo isticmaalay, wuxuuna si dhaqso ah u soo dalbatay amaah 18 bilood ah oo uu ku qaatay kooxda kale ee Bundesliga ee Bayer Leverkusen, halkaasi oo ku soo laabtay naadigiisii waalidkii isaga oo kor u kacay. 2010 Kroos ayaa markaasi noqday ciyaaryahan lama huraan u ah naadigiisii Bavaria, wuxuuna muhiim u ahaa guulo dhowr ah oo ay ku jiraan 2 horyaal oo xiriir ah, horyaalka UEFA Champions League iyo 2 koob oo kale. Waxa uu sidoo kale 3 jeer loo doortay kooxda xilli ciyaareedka ka hor inta uusan u dhaqaaqin Spain si uu ugu biiro kooxda La Liga ee Real Madrid 2014 lacag dhan 25 milyan oo euro. Kroos waxa uu noqday ciyaaryahan muhiim u ah oo ka mid ah kooxda intii ay hogaaminayeen tababarayaasha Carlo Ancelotti iyo Zidane. Waxa uuna ka caawiyay Real Madrid inay ku guuleysato 3 koob oo isku xigta oo Champions League ah. Kadib markii uu ku guuleystay xirfadiisii dhalinyaronimada caalamiga ah, kaasi oo uu ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka dahabiga ah oo uu ku dhameystay gooldhaliyaha ugu sareeya UEFA European Under-17 Championship 2006, wuxuuna ku guuleystay abaalmarinta kubadda dahabka ee ciyaaryahanka ugu fiican FIFA Under-17 World Cup-kii 2007. Kroos ayaa kulankiisii ugu horeeyay u saftay Germany 2010. Waxa uu dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee caalami ah 2011 kulan saaxiibtinimo oo ay la ciyaarayeen Poland. Tan iyo markaasi waxa uu furo u ahaa xulka qaranka, isaga oo ka soo muuqday tartan kasta oo waaweyn oo Jarmalka u soo baxay, isaga oo ka soo bilaabay 2010 FIFA World Cup 2014. Kroos ayaa dalkiisa ku hogaamiyay guul koobka adduunka ah sanadkaas, halkaasi oo uu ahaa caawiyaha ugu sareeya, waxaana loo doortay kooxda xiddigaha iyo kooxda riyada. Waxaa sidoo kale loo doortay ciyaaryahanka sanadka ee Jarmalka UEFA Euro 2016.